Yuzu wuxuu ahaa arday tusaale u ah fasalka. Ma uusan lahayn darajooyin sare oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu ahaa qof is-hoosaysiya oo edeb leh, taasoo keentay in qof walba xushmeeyo. Noloshii Yuzu si habsami leh ayay u socotay ilaa uu soo bandhigay arday cusub oo soo wareegay. Macallinkii wuxuu Shock-tan ku soo bandhigay inuu yahay horyaalka feerka dugsiga sare ee qaranka. Fasalkii wuu sacabtumay marka laga reebo Yuzu, wuxuu u muuqday mid baqdin qaba sidii inuu jinnigii arkay. Isla markii uu macallinkii baxay, Shock-chan wuxuu garaacay ardayga fasalka dhibka badan, wuxuuna si degdeg ah u xaqiijiyey awoodiisa. Kadibna wuxuu si tartiib ah u taabtay wejiga Yuzu, wuxuuna si qof garanayo u salaamay. Hogaamiyihii fasalka wuxuu isku dayay inuu joojiyo, laakiin Shock-tan ma ahayn nin edeb leh, xitaa gabdhaha ayuu cagajugleeyey. Yuzu wuxuu si taxadar leh gacanta uga qabtay, wuxuuna ka baryay inuu joojiyo, laakiin taasi waxay keliya ka sii xanaajisay. Shock-tan wuxuu ku qayliyey Yuzu isagoo ku eedeeyey inuu hilmaamay casharadii hore. Waxaa soo baxday in Shock-tan uu Yuzu cagajuglayn jiray dhammaan dugsiga dhexe, mar kasta oo uu macallinka kaalmo weydiisto, arrimuhu waxay keliya ka sii darayeen. Hadda riyo xumadii ayaa soo laabatay. Yuzu wuxuu ku dhacay dhulka isagoo xanuun la ooyaya. Kadibna qalin ayaa indhihiisa qabtay. Wuxuu si adag u kacay oo gacmo gariiraya ku qabtay. Sakan wuxuu ku qoslay oo ku caayay inuu yahay fulay. Xitaa wuxuu qabtay gacanta Yuzu wuxuuna farta ku fiiqay indhihiisa isagoo ku dhiirigelinaya inuu mindi ku dhufto. Sanado cabsi iyo cadho ah ayaa qarxay, Yuzu wuxuu si dareen leh u muday. Fasalkii oo dhan ayaa yaab la qabowsaday. Shock-kan wuxuu xanuun la qayliyey isagoo indhihiisa qabsaday. Ugu dambayntii, sababtoo ah Yusi ula kac ah ayuu hub u isticmaalay oo keenay in Shock-kan uu waayo ishiisa midig, looma arkin difaacasho. Hooyadiis waxay si aan tabar lahayn u oyday. Yuzu weligiis ma filanin in dagaalkiisii keliya ee uu isku difaacay uu burburin doono mustaqbalkiisa ifaya, baska xabsiga ku socda, qofna kuma dhiiran inuu la wareego ninka fadhiya safka dambe. Kursiga Yuzu waxaa qabsaday nin timo cad ah, sidaa darteed wuxuu ku qasbanaaday inuu la fadhiisto ninka cabsi gelinaya. Kadib markii la yimid, waardiyaashu waxay qaateen dhammaan alaabtoodii. Hunmin wuxuu mar kale si aamusnaan ah u weydiiyey sababta uu xabsiga ugu jiro. Yuzu wuxuu hoos u yidhi, isku day dil. Qof walba wuu naxay. Hunmin wuxuu si degdeg ah uga raaligeliyey inuu kursiga xaday, wuxuuna been ka sheegay in dembigiisu la mid yahay, laakiin markii dambe, markii uu isku soo bandhigayay maxaabiista kale, wuxuu qirtay inuu u xiran yahay xatooyo keliya. Maxbuus khibrad leh ayaa labada qof ee cusub u sharaxay sharciyada xabsiga. Halkan kala sarreyntu waxay ahayd wax walba, feeruhuna waxay go'aaminayeen darajada. Wuxuu digniin ka bixiyey haddii aysan garaaci karin inay hoos u deganaadaan oo ay noqdaan kuwa aan la arkin. Hadda xabsiga waxaa maamulayay 3 kooxood, mid uu hogaaminayo Sang Hyep oo ahaa horyaal judo adduun ah oo leh xirfado aan laga adkaan karin, mid kale oo ahaa Jun oo ahaa nin muruqyo badan oo waalan marka uu xanaaqo. Kii saddexaadna wuxuu ahaa Seung oo ahaa nin gaaban oo u muuqday mid daciif ah, laakiin awood u lahaa inuu burburiyo qof kasta si uu awood u helo. Wanjun iyo Seung waxay isku bahaysteen inay dabinka dhigaan. Waxay iska dhigeen inay dagaalamayaan, waxayna ku eedeeyeen Sang Hyep inuu soo weeraray oo sigaar xaday. Sababtaas awgeed, Sang Hyep waxaa la geliyey xabsi gooni ah, taasoo ka tagtay labadooda oo keliya oo awoodda haya. Laakiin xabsiga waxaa jiray hal oo keliya oo dhab ah, xitaa haddii 3 kabtayn ay isku darsamaan ma garaaci karin. Ninkaas wuxuu ahaa Dune, kii shalayuu la fadhiistay. Duhyun wuxuu ahaa horyaalka adduunka ee maada ugu dada yar, warbaahinta shisheeyahana waxay ku ammaanayeen inuu yahay Ubermensch. Maalin maalmaha ka mid ah, wuxuu ubaxyo iyo hadiyada u keenay guriga dhalashada walaashii, laakiin markii uu furay qaboojiyaha, gacantiisu waxay dhiig ku daboolnayd. Wuxuu guriga ka baaray isagoo argagaxsan, wuxuuna helay walaashii oo ku jiifta barkad dhiig ah. Si lama filaan ah, weeraryahan ayaa qoorta ka qabtay gadaal, isagoon garanayn sida uu Dun u khatar yahay. Duhune wuxuu si fudud u jabiyey lugta weeraryahanka. Markii uu arkay meydka hooyadiis, wuu cadhooday, wuxuuna si xun u garaacay weeraryahankii labaad ilaa uu miyir beelay. Weeraryahan kale wuxuu isku dayay inuu si qarsoodi ah u weeraro, laakiin waa la garaacay isagoon fursad u helin inuu iska difaaco. Ugu dambayntii, dhammaan 3dii burcad ee hubaysnaa waxay ku dhinteen isla goobta. Duhune waxaa loo xiray difaacasho xad dhaaf ah. Yuzu wuxuu ka walwalsanaa sidii uu ugu noolaan lahaa nolol adag oo xabsi ah. Isla markaas, ciyaaryahan ayaa dhaawacmay. Yuzu wuxuu ku qasbanaaday inuu beddel ahaan u ciyaaro. Wuxuu si qalafsan u laaday kubadda cagta, laakiin si lama filaan ah wuxuu ugu dhuftay Wanjun xubintiisa taranka. Sunyong wuu qoslay isagoo leh Yuzu wuxuu ku jiraa dhibaato weyn. Rag qaar waxay isku dayeen inay u jiidaan gees qarsoon. Muuqaalkani wuxuu soo celiyey xusuus xanuun badan. Isla waqtigan muhiimka ah, muuqaal la yaqaan ayaa soo maray. Yuzu wuxuu si adag u halgamay inuu iska xoreeyo sidii inuu qabsanayo cawskii u dambeeyey, wuxuuna ka codsaday Dune caawin. Wanjun wuxuu xoogaa ka cabsaday Dun, laakiin weli wuxuu uga digay inaanu soo faragelin. Dun wuu ka labalabeeyey, laakiin wuxuu go'aansaday inuu badbaadiyo wiilka miskiinka ah. Wanjun wuxuu dareemay bahdil, wuxuuna ku eedeeyey Dune inuu yahay dilaa isagoo iska dhigaya mid wanaagsan, taasna wuxuu ku orday hore. Duhyun wuxuu si degdeg ah uga leexday dhammaan weerarada, wuxuuna ku dhameeyey hal feer. Yuzu wuxuu eegay badbaadiyihiisa isagoo xushmad weyn u haya. Laga soo bilaabo maalintaas, Wanjun wuxuu ku qoray liiska dadka uu dilayo, halka Yuzu uu raadinayay waddo uu uga baxsado. Marti lama filaan ah ayaa u timid si ay u aragto. Shock-tan ishiisa midig waxay ahayd indhola, shaqadiisii feerkuna way dhammaatay.
wuxuu yidhi wuxuu sugi jiray maalin kasta sii dayntayu, taasina waxay noqon doontaa bilowga cadaabka. Yuzu ma qiyaasi karin xanuunka soo socda. Wuxuu si aan tabar lahayn u ooyay isagoo naxariis ka baryaya. Seokan wuxuu kaliya yidhi ma cafin karo, wuuna xanaaqay oo tegey. Maalmihii xigay, Yuzu wuxuu ku noolaa cabsi maalin kasta. Maalintii, hanjabaadyadii Wenjun waxay ku raacayeen meel walba. Habeenkii, wejiga qallafsan ee Seokan wuxuu ku riyooday. Markii uu arkay Dune oo tababaraya, Yuzu wuxuu go'aansaday inuu fursad quus ah qaato. Maalin kasta wuxuu la keenay dhalo caano ah si uu u soo booqdo. Markii hore Dun wuxuu u maleeyay inuu isku dayayo inuu iska dhigo kan ugu xooggan, wuxuuna si qabow uga digay inuu ka fogaado, laakiin Yuzu wuxuu raacay si kastaba. Wuxuu soo ururiyey geesinimadiisii, wuxuuna ka baryay Dun inuu baro sida loo dagaalamo. Wuxuu rabay inuu xoog yeesho sidii isagoo kale. Dun wuu diiday, ma uusan rabin in uu maro waddo qaldan oo aargoosi ah. Yuzu wuxuu yidhi wuxuu kaliya rabay nolol caadi ah. Wuxuu qirtay inuu mar walba carari jiray sababtoo ah ma uusan rabin in la garaaco. Wuxuu nacay naftiisa sababtoo ah wuxuu ahaa sabool iyo daciif. Hitaa wuxuu u maleeyay in jiritaankiisu ahaa khalad, laakiin hadda ma uusan rabin inuu mar dambe cararo. Ugu dambayntii, Dohun waxaa dhaqaajiyey daacadnimadiisa. Wuxuu ogolaaday inuu Yuzu tababaro, laakiin kaliya haddii uu ordo 1 eber wareeg 4 daqiiqo gudahood. Markii Dohun uu qayliyey bilow, wuxuu orday isagoon ka labalabaynin. Goordhow wuxuu neef qabtay, aragtidiisu way madoobaatay, lugihiisu way daciifeen, laakiin ma uusan joogsan. Xusuusihii bahdilka ahaa ee lacaga jugleeyay waxay maskaxdiisa ku soo noqnoqdeen. Tani waxay ahayd fursaddiisii keliya ee uu ku beddelo aayihiisa. Wuxuu ku qasbanaaday inuu sii wado. Markii uu maray wareeggii 7 eber aad, Yuzu wuxuu ku sigtay inuu awood gabay. Wuu dhacay, wuu matagay, wuxuuna rabay inuu isdhiibo. Hitaa Dun wuxuu u sheegay in isdhiibiddu aanay ahayn wax laga xishoodo, laakiin isagoo ka fikiraya naftiisa daciifka ah ee hore, Yuzu wuxuu si adag ugu istaagay lugihiisa. Wuxuu u qayliyey sidii bahal, wuxuuna hore u orday ilaa uu miyir beelay. Inkasta oo uu ku fashilmay imtixaankii, Dune wuu aqbalay. Tanksto xiriirka wanaagsan ee Dune la lahaa maamulaha xabsiga, Yuzu wuxuu u guuray qolkiisa. Duhune wuxuu isla markiiba siiyey imtixaan jirdhis ah. Markii uu arkay qaabkiisa qalafsan ee bush-ubka, Dune wuxuu weydiiyey inuu buko. Waxaa ka sii darnaa in Yuzu uusan xitaa hal bul-ub samayn karin. Duhune wuu taahay. Caawimadiisa, Yuzu wuxuu si gariiraya u dhammaystiray bul-ubkiisii ugu horreeyey. Tababarkiisii adkaa wuu bilowday. Maalmihii ugu horreeyey, Yuzu xubnihiisu way daciifeen, dhowr bush-ub waxay ka tageen isagoo ku dhacay dhulka. Laakiin tababar adag hoostiisa wuxuu sii waday inuu ka gudbo xadidihiisa si uu xoog u yeesho. Wuxuu wax badan cunay, wuxuuna cuntooyinka ula dhaqmay sidii qayb ka mid ah tababarka. Maalin kadib maalin, feerkiisu way sii xoogaysteen, murqahiisu way qaabaysteen, xitaa xargaha iska caabinta resistant bands way jabeen awooddiisa awgeed. Markii wakhtigu sax ahaa, Dune wuxuu baray xirfadaha dagaalka iyo sida loo qaato dharbaaxooyinka. In yar, Yuzu oo mar daciif ahaa oo baqdin qabay wuxuu noqday dagaalyahan xooggan. Hitaa maxaabiista kale way ka naxeen isbeddelkiisa. Seoktan wuxuu si ula kac ah uga wareegay jidka. Gaari ka dambeeya wuxuu sii waday inuu buuq sameeyo. Ragga gudaha ku jiray waxay ku habaareen isagoo weydiinaya inuu indho la yahay. Ereygaasi wuxuu si qoto dheer u dhaawacay Seoktan. Wuxuu u orday wuxuuna laaday muraayada dhinaca, kadibna wuxuu garaacay labadii nin ee edeb darrada ah. Muuqaalkan waxaa markhaati ka ahaa hogaamiye kooxeed la yidhaahdo Wuyang. Waxaa la yaabtay hibada dabiiciga ah ee Seoktan, wuxuuna rabay inuu shaqaalaysiiyo, laakiin Seoktan ma uusan danaynayn haba yaraatee ilaa Wuyang uu ogaaday ishiisa midig ee indhola. Wuxuu ballan qaaday inuu daweyn karo oo uu Seoktan ka sii xoogayn karo. Markii uu taas maqlay, Seoktan wuxuu bilaabay inuu ka labalabeeyo dib xabsiga. Yuzu wuxuu wax baranayay isagoo ku taagan qaabkii fardaha. Hunmin wuxuu la yaabay sababta uu u jeclaa jimicsiga. Yuzu wuxuu yidhi wuxuu kaliya rabay inuu xoog yeesho, laakiin waqti kadib wuxuu bilaabay inuu ku raaxaysto. Kadibna Hunmin wuxuu siiyey war xun. Dun wuxuu ka weynaa 2-3 jir, waxaana loo wareejin doonaa xabsiga dadka waaweyn. Intii uu tababarka ku jiray, Yu wuxuu lumay diiradiisa. Duhune wuxuu u xusuusiyey inuu si adag u tababaro ilbiriqsi kasta sababtoo ah ma aysan lahayn waqti badan oo hartay. Kadibna Yu wuxuu ogaaday in Hunmin la cagajuglaynayo. Wuxuu si degdeg ah u soo dhex galay wuxuuna joojiyey. Cagajuglaynayaashu waxay isku dayeen inay isku kooxaystaan, laakiin Yu hadda wuxuu ahaa mid xoog leh oo ku filan inuu difaaco saaxiibkiis. Wenjun wuu xanaaqay kadib markii uu maqlay in raggiisa ay dhaawacmeen. Wuxuu u diray qof inuu Yu ugu yeero goobta shaqada isagoo qorsheynayay inuu isku xisaabiyo waxyaabihii hore iyo kuwa cusub ah. Yuzu wuxuu ka raaligeliyey garaacista ragga Wenjun, wuxuuna sharaxay in iyagu ay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee cagajugleeyey saaxiibkiis, laakiin Wenjun ma uusan dhegaysan, wuxuuna Yuzu ku dhuftay madaxa si adag. Yuzu wuxuu ka leexday dharbaaxada labaad, wuxuuna si riflex ah Wenjun u dharbaaxay. Wenjun oo ceebaysan ayaa xanaaqay oo Yuzu dhulka ku dhuftay. Yuzu si degdeg ah ayuu u kacay, laakiin feerkiisu ma uusan u muuqanin waxba Wenjun oo xoogan. Feerarka Wenjun waxay u soo degeen sidii dubayaal. Yuzu si tartiib ah ayuu ugu dhacay cidhiidhi. Wuxuu dhacay isagoo xanuun la ooyaya. Yaabkii qof walba, Yuzu wuxuu ku istaagay go'aan. Wuxuu mar kale ku garaacay wejiga Wenjun marar badan ilaa uu miyir beelay. Isla waqtigii muhiimka ahaa, Dohun wuxuu joojiyey Yuzu inuu lumiyo xakamaynta. Wuxuu ka baqay in Yuzu uu ku dambayn doono sidii isagoo kale.
dhanka kale Seok-kan wuxuu noqday mid kasii qabow oo kasii naxariis daran dagaal joogto ah awgeed. ugu dambeyntii wuxuu noqday dilaha Woo-young ee lagu kalsoon yahay. maalintii xigtay Dun wuxuu Yuzu u diyaariyey qado weyn. labadoodu kadib waxay yeesheen ciyaartoodii ugu horreysay ee dhab ah. Duhune wuxuu ogaaday in Yu uu is-celinayay wuxuuna u sheegay inuu si dhab ah u qaato. Yuzu wuxuu ku dagaalamay awood buuxda laakiin feerkani wuxuu weli istaagay ilbiriqsiyadii ugu dambeeyey. Duhune wuxuu u canaantay ka labalabaynta wuxuuna uga digay in la garaaci doono isla marka uu feejignaan la'aan noqdo. si kastaba ha ahaatee wuu ku faanay. Yu wuxuu sameeyey si ka wanaagsan sidii la filayay. wuxuu ku dhawaaqay in koorsada la dhammeeyey. waxaa soo baxday in Dun maanta loo wareejinayay xabsiga dadka waaweyn. ka hor inta uusan bixin wuxuu Yu u sheegay in shimbiraha badda aysan lahayn xameeti dabaal ah, sidaa darteed haddii ay joojiyaan dabaalka way degaan oo way dhintaan. wuxuu rajaynayay in Yu uusan weligiis joojin. kadib markii Duhun baxay, Yuzu ma ceshan karin ilmadiisa. wuxuu keliya ku buuxin karaa qalbigiisa faaruqa ah tababar aan joogsi lahayn. ka hor inta uusan baska fuulin dhan wuxuu mar ugu dambaysay eegay xabsiga. isla wakhtigaas maxbuus hore oo hadda u shaqeeya Seok-chan wuxuu ku faanay sida uu Yuzu u xoogaystay Dune hoostiisa. markii uu taas maqlay Seok-chan wuxuu keliya qosol qabow bixiyey. maalintii xigtay wuxuu mar kale booqday xabsiga wuxuuna Yu weydiiyey inuu jimicsi samaynayay keliya si uu isaga ula dagaalamo. Yuzu ma uusan jawaabin, beddelkeeda wuxuu ku jeesjeesay Seok-chan inuu weli isku mid yahay. Seok-chan wuxuu ku qoslay wuxuuna yidhi wuxuu sugi jiray maalinta Yu uu baxo. goor dhow Sang Hyab wuxuu ka soo baxay xabsiga goonida ah. isla mar ahaantaana Yu wuxuu ku soo laabtay qolkiisii hore. Sang Hyab wuxuu si dhab ah u weydiiyey in Yuzu uu rabay inuu booskiisa qabto. Yuzu wuxuu si aan feejignaan lahayn ugu jawaabay inuusan danaynayn. Sang Hyab wuxuu jahawareeray sababtoo ah wuxuu maqlay in Yuzu uu ahaa qof dagaal jeclaysi ah. intii lagu jiray shaqada nadiifinta, Seung-gyong wuxuu Yuzu ku loolan siiyey. haddii Yu uu guulaysto, Seyong wuxuu samayn doonaa wax kasta oo uu yidhaahdo. Yuzu wuxuu ka codsaday inuu joojiyo cagajuglaynta dadka kale. Seung-gyong wuu oggolaaday. maalintii dagaalka, Yuzu wuu libdhay. Seung-gyong wuxuu si fagaare ah ugu caayay inuu yahay fulay. markii uu taas arkay, Sanangya wuxuu ka hadlay nabadda iyo jacaylka. wuxuu yidhi dagaalku wuxuu keliya keenaa ciqaab iyo xanuun, wax kale maaha. wuxuu u sheegay qof walba inaysan sii noolaan sidii qashin. isla markaas Yuzu wuu yimid. Seung-gyong wuxuu marka hore weeraray isagoon ka labalabaynin. wuxuu ahaa degdeg ah oo duurjoog ah, Yu ma uusan iska caabin karin. Seung-gyong wuxuu u maleeyay inuu guulaystay laakiin wuxuu la yaabay markii Yu uu mar kale kacay. wuxuu qabtay lugta Seung-gyong wuxuuna si adag ugu dhuftay bowdada. kadibna wuxuu isticmaalay Rokehold si uu dagaalka u beddelo. Yuzu wuu guulaystay isagoo noqday kan ugu sarreeya xabsiga. dhexdhexaadintiisa, Wenjun iyo Seung-gyong waxay oggolaadeen inay joojiyaan isticmaalka rabshadaha iyo cagajuglaynta dadka kale. nabadii ayaa ugu dambayntii ku soo laabatay xabsiga. cadaawayaashii hore waxay noqdeen saaxiibo dhow. Seung xitaa wuxuu Yu baray dhammaan farsamooyinkii laadadka xabsiga dadka waaweyn. Dun wuxuu bilaabay wareeg kale oo madax furasho ah, laakiin qalbigiisa qofna ma beddeli karin ardaygiisii ugu horreeyey. dhaqan wanaagsan awgiis, Yuzu waxaa la sii daayay goor hore. ka hor inta uusan bixin wuxuu booqday goobta tababarka mar ugu dambaysay isagoo xusuusanaya maalmihii uu la qaatay Dohi. kadib wuxuu ka tegay xabsiga isagoo aad u mahad celinaya. laakiin ka hor inta uusan Yu neefsan, dhibaato kale ayaa soo ifbaxday. Seok-chan wuxuu isku dayay inuu ceebayo isagoo isticmaalaya tofu, laakiin Yuzu wuxuu tan u arkay mid carruurnimo ah. iyagoon wax kale ka hadlin, dagaalkoodii ugu dambeeyey wuu bilowday. Seok-chan oo khibrad leh ayaa si adag u weeraray isagoo Yu u garaacaya sidii kiish feer. xitaa wuxuu ku jeesjeesay hooyada Yuzu isagoo leh waxay u baryaysay sidii ay. Yuzu wuu xanaaqay wuxuuna si adag u feeray. Seok-chan wuxuu lumiyey xakamaynta wuxuuna Yuzu madaxa iyo caloosha ku dhuftay marar badan. Yuzu wuxuu ku dhacay dhulka isagoo dhiig qufacaya. isla wakhtigaas wuxuu xusuustay wixii Dune u sheegay, inuu noqdo shabeel mar walba dabaalanaya, weligiis aan joogsanayn. ruuxiisa dagaalku wuu soo laabtay. waxay bilaabeen inay isfeeraan si waali ah. Yuzu wuxuu isticmaalay farsamadii feerka ee Dun baray wuxuuna ku dhuftay sunniyaha Seok-chan. Seok-chan wuu xanaaqay wuxuuna bilaabay inuu feerar duurjoog ah tuuro. Yuzu wuxuu arkay fursad wuxuuna isticmaalay farsamadii laadadka ee Seung-gyong. Seok-chan wuu kacay isagoo naxsan. ma uusan filanin in Yu oo daciif ah uu sidan u xoog badan yahay. laakiin dagaalkii ma dhammaan, hadda wuxuu ku saabsanaa rabitaan, Yuzuna weligiis ma lumin. ugu dambayntii Seok-chan wuu isdhiibay. isagoo daawanaya Yuzu oo socday, wuxuu dareemay guuldarro qoto dheer. dabayaaqadii, Yuzu wuxuu booqday Dune oo xabsiga ku jira. labadooduba way ku faraxsanayeen inay mar kale is arkaan. Yuzu wuxuu si taxadar leh u weydiiyey inuu weligiis arkay shabeel dhab ah. wuxuu yidhi wuxuu aaday aquarium wuxuuna arkay in shabeelka aysan runtii badan dhaqaaqin. Duhune wuxuu u muuqday mid xoogaa xishood badan wuxuuna yidhi waxaa laga yaabaa in shabeelkaas uu hore u dhintay. jawaabtii qosolka badnayd ayaa labadoodaba qoslisay. 6 bilood kadib, nolosha ka baxsan xabsiga weli way adkayd Yuzu. rikoodh dembi ah oo uu lahaa awgiis wuxuu la kulmay takoornimo iyo daaweyn aan cadaalad ahayn. wuxuu keliya ku tiirsanaan karayay saaxiibadiisii xabsiga si ay isugu taageeraan. Sun Yong wuxuu jidka ku hayay gaari cunto, food truck. Wenjun wuxuu ka shaqaynayay goob dhismo wuxuuna wax baranayay wakhtigiisa firaaqada.
Sang Hiyab wuxuu u xiisay noloshii tartamayaasha wuxuuna ku soo laabtay jimicsiga. Yuzu wuxuu tababar adag samaynayay maalin kasta isagoo nasan. Waxay isku ballan qaadeen in xitaa haddii calaamada conflict ay ku riixdo inay gaaraan cidhifka aysan isdhiibi doonin. Maalin maalmaha ka mid ah Yu wuxuu mar kale booqday Diyun isagoo wada war wanaagsan. Wuxuu shaqo waqti dhiman ah ka helay Gim waxay xalliyay dhibaatooyinkii cunnada iyo guriyeynta wuxuuna u ogolaaday inuu sii wado tababarka. Waddada loo maro inuu noqdo feeryahan way adkayd laakiin shabeelku weligiis ma joojiyo dhaqaaqa. Weli Dohi wuu walwalsanaa inkasta oo Yuzu uu ka adkaaday burcadka caanka ah ee Seok dhibaato ayaa daba socon doonta. Wuxuu sii waday inuu Yuzu uga digo inuu feejignaan ku jiro oo uusan si degdeg ah u dhaqaaqin. Yuzu wuu aamusnaan ku ruxay madaxiisa Dohuna wuxuu u sheegay inuu dhammaantiis bixiyo dib Gimka. Yuzu wuxuu si kasii adag u shaqeeyay wuxuuna qiimeeyey fursada. Isla mar ahaantaana macallin waxaa garaacayay feeryahan xirfadle ah. Qofka kibray Al wuxuu weydiiyey kiishkii feerkar ee maanta ahaa. Macallinka wuxuu yiri dhammaan kuwa loolanka la sameeya way carareen sababtoo ah Al wuxuu u dagaalamayay sidii inuu qof dili rabo. Kadib macallinka wuxuu si random ah u soo qaatay Yuzu oo meesha ku dhawaa. Al wuxuu xiisaynayay kii hore ee xabsiga ku jiray wuxuuna u sheegay inuu soo kaco. Hitaa wuxuu kaftan ku yiri haddii Yuzu guulaysto waxaa laga yaabaa in macallinka uu runtii ka dhigo feeryahan. Markii uu taas maqlay Yuzu isla markiiba wuu ogolaaday wuxuuna si fudud uga leexday weerarkii ugu horeeyay. Macallinka wuxuu u tuuray qalab buuxa laakiin Yuzu wuxuu kaliya gashaday gacmo gashi. Al wuxuu ku qoslay isagoo u malaynaya in uu isaga hoos u eegayo wuxuuna bilaabay weerar xoog leh. Yuzu wuxuu sii waday inuu madaxa ilaaliyo wuxuuna ku sii jiray difaac. Kadib wuxuu helay waqtigii saxda ahaa wuxuuna feeray gacanta Al wuxuu jilba joogsaday isagoo xanuun la ooyaya.